Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada mar kale iyo FPL Soomaali. Saaxiibayaal, sidaa wada ogtihiin toddobaadkan waxaa dhacay in ciyaaryahanno badan ay qaarkood ay dhaawac yihiin, qaar ay sidoo kale ganax ku maqan yihiin sida Antonio oo kale. Sidoo kalena maamulayaal badan ay ka fikirayaan inay sameeyaan wildcard-ka oo ay salugsan yihiin ciyaaryahanada ay haystaan. sidaa darteed maamulayaasha ayaa waxaan rabaa inaan wildcard-ka macquulka ah ee suuragalka ah la samayn karo iyo waxa wildcard uu yahayba. Marka ugu horeysa horta wildcard muxuu yahay? Wildcard-ka wuxuu ka mid yahay jibaaro 4 ah oo ay FPL ugu talagashay in maamulayaasha ay isbedel ugu sameeyaan shaxdooda. Jibaarkan wuxuu kaa caawinayaa in aad sameysid bedel oo ilaa iyo inta arabtid ah kadibna wax dhibic ah aan laga guursaneyn. Jibaarada kale sida jibaarka bench boostiga waxaa xasuustaan inuu yahay in dhibcaha lagu daro dhibcaha bedelka lagu daro. Jibaarka kale waa triple captain oo kabtankaagii ayaa lagu laba jibaarayaa. Jibaarka kale waa free hit-ka oo maamulayaasha waxay samayn karaan free hit marka kulamada blank game week-ga ama blank game week tusaale ahaan uu jiro ama double game week oo hoosta laga soo geliyo uu jiro. Double game week iyo blank game week waxa ay kala yihiin laftooda waan ka soo hadli doonaa. Markaas oo kale ayaa la sameeyaa free hit-ka jibaarkaas. Jibaarkaas waxa uu kuu suuragelinayaa inaad hal mar shaxdaada aad bedelatid oo uga faa'iidaysatid toddobaadkaas kulamada jiro kadibna toddobaad ku xiga shaxdaada hore ay kuu soo laabto. Marka hadda waxaan sameynaynaa wildcard ayaan sameynaynaa. Marka waxaan aadaynaa qaybta transfer-ga ama qaybta bedel samaynta. shaxdan haddii aan fiirino toddobaadkii la soo dhaafay FPL Soomaali waxaa uu keenay 96 dhibcood oo ciyaaryahanada hadda aan isleeyahay bedel ayaa lagu sameyn karaa ma muuqato ciyaaryahanada ugu fiicnaa halkan ay ku jiraan. Marka waxaan gelaynaa meel kale aan fiirinaynaa akoonka tijaabada aan ku sameynayay ciddii boggaan la socotay aan tijaabada ku sameynaynay aan gelaynaa. Akoonkan haddii aan fiirino waxaa dhaawac ama waxaa maqan ciyaaryahanka lagu magacaabo Antonio oo kaarka cas la siiyey kulankii la soo dhaafay. Marka waxaan isleeyahay halkan ayaa ugu fiican oo lagu sameyn karaa wildcard lagu sameyn karaa. hadda waxaa aadaynaa qaybta bedel samaynta kadibna waxaan sameynaynaa bedelka ugu badan. Marka haddii aan rabno ciyaaryahan iska bedelna waan sameynaa. tusaale Chilwell waxaad moodaa inuusan doorka kusoo bilaabashada iyo midna uusan ku jirin. iska bixi Lowton oo kale iska bixi Digne oo kale ilaa hadda si fiican uma ciyaarayo. ciyaaryahan Cresswell waa deysanaynaa. Martinez isna waxaad moodaa in kulankan uusan ciyaari doonin. Moutinho ayaan iska bixinaynaa. Pogba haddaan rabno ku deysanaynaa. Gundogan Man City ayuu ciyaaraa. Man City ciyaaryahanada aad loogu xisaabtami karo. Mount wuxuu ku hormaanaya kooxda Tottenham waxaa suuragal ah inuusan si fiican uga soo muuqan balse waa ku deysanaynaa. ciyaaryahan Richarlison waxa uu ka hor imaanayaa kooxda inta ka fiirina kooxda ku hor imaanaya Richarlison waxa uu ka hor imaanaya kooxda Aston Villa. Bamford ayaa isna ka hor imaanaya kooxda Newcastle. marka Antonio iska saar. ilaa hadda waxaan bixinay kostigan markaa fiirisid lagu leeyahay 24 dhibcood waaye 4 dhibcood ayaan lagu leeyahay. marka si guud kan xataa Richarlison laftiisa bixi Mount bixi waxaan rabnaa ciyaaryahanno cusub inaan keensano. marka ugu horeysa kiibaha ama goolkiibaha ayaan soo qabsanaynaa. goolkiibaha hadda aan isleeyahay lacag fiican iyo qiimo fiican buu maadaama Sanchez aan haysano waxaan soo gashanaynaa Raya oo isna bedel fiican noqon kara haddii ay wax isbedelaan maadaama badbaadinta iyo waxyaabahaas oo dhan kooxaha iyo inta kooxaha hoose aad ugu fiican yihiin. daafac qiimihiisu uu yahay 4.4 ayaan ku bedelaynaa ninkan laakiin si fiican u ciyaaraya hadda. markaa fiirisid ciyaaryahankan u ciyaara kooxda Brentford wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu qiimaha yar dhinaca daafac markaa fiirisid haddana dhibcaha badan keena. marka David Noken inkastoo saaxiibkiis Sanchez aan wadano
haddana dhinacaas markaa fiirino Cancelo doorkiisa hadda wuxuu ku soo hormaray dhinaca daafac bidix marka waxaa suuragal ah in mar walba uu ku bilowdo wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada la isku halayn karo ee kooxda Manchester City marka la dhaho maamulaysa FPL-ka isaga iyo Diaz waxay ka mid yihiin kuwa la isku halayn karo dhinaca daafaca markaan fiirino Alexander-Arnold waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu fiican dhinaca chance abuurista Reguilon ayaan iska bedelaynaa asna waxaan soo qaadanaynaa ciyaaryahan qiimihiisu u fiican iska raqiis ka yahay haddana ciyaaryahankan waa kusoo bilaabashadiisa iyo kooxdan maadaama Wolves uu ka mid yahay daafacooduna uu aad u adag yahay waa soo qaadanaynaa Cresswell aan ku daysanaynaa qiimahan haddaan fiirino 34 ayaan maraynaa halkan waxaa igu bedeshaa marka ugu horeyso Cristiano Ronaldo oo qiimihiisa hadda u sare u kacay oo 12.6 noqday haddana Antonio waxaa ku bedelaynaa Jimenez ayaa ku bedelaynaa Jimenez waxa uu ka mid yahay doorarka ugu fiican ee toddobaadkan suuragal tahay inuu si fiican u ciyaaro waxaa inaga maqan ilaa 4 ciyaartoy ilaa 3 ciyaartoy qiimaheena waxaa moodaa inuu gaarayo 14 dhibic sidaa darteed waxaan sameynaynaa bedel oo raqiis ah bedelkaasi waxa uu noqonayaa Townsend marka ugu horeysa Townsend doorarka suuragalka ee farqiga ah ayuu ka mid yahay ciyaaryahanka kale ee aan soo qabsanayno waa Bissouma waxaan moodaa qiimahan inuu zaa'id yahay hadda waxaan sameynaynaa qiimaha aan haysano ciyaartoyda ayaa yaraynaynaa Bamford iska saar kadibna Gray saas u keen Gray saaxiibkiisa wadanaa Gray kuma talinayo ciyaaryahan Sarr ayaan soo qabanaynaa hadda waxaan u baahannahay weerar qiimihiisu 6 u yahay ayaan u baahannahay way yartahay inaan helno balse waa raadinaynaa Benteke ama Odegaard ayaan ugu fiicnaan laakiin Buki ayaan soo qabsanahay hadda waxaan sameynay jibaarkeeni wildcard-ka ciyaaryahanada aan haysano ee aan isleenahay ku soo bilaabo mar walba inaan niyad ku haysta ciyaaryahanada ciyaarsiin doonto salaana hadda waxaan isleeyahay waxaan ciyaari lahaa Cancelo Alexander-Arnold Martial iyo Cresswell 4 ku bilow kadibna Sarr Pogba Townsend iyo Salah meeshaasi 4 wuu ku haystaa kadibna Cristiano Ronaldo iyo Jimenez sidaasna waxaan ku sameynay wildcard ayaan sidaas ku sameynay aan leenahay bedel samee kadibna waxaan kusii dhufanaynaa play wildcard halkan waxaa idinkaga muuqda play free hit-ka waa idin sheegay waxuu ka mid yahay jibaarada ee maamulayaasha ciyaari karaan laakiin hadda waxba hadda ciyaaran haddii aad bedel sameynaysid maadaama wildcard-ka 2 mar la ciyaaro oo marna qaybta xilli ciyaareedka qaybtiisa hore la ciyaaro mar kalena qaybta labaad ee xilli ciyaareedka la ciyaaro marka hadda inaad ka haysato ayaa mar walba fiican free hit-ka mar walba hal mar oo keliya waaye hal mar haddaa ciyaarto mar kale ma helaysid marka wildcard ayaan dhehaynaa play wildcard kadibna waxaan leenahay confirm transfer and play wildcard sidaas ayaan waxaan ku haysanaa wildcard-keenina aan ku haysanaa haddana waxaan ku laabanaynaa inaan shaxdeeni aan dhisano Buki iska soo saar waxaa kusoo bedeshaa Cancelo kusoo bedel sidaasna waxaan ku haysanaa shaxdii aan niyadda ku haysanay oo aan ciyaari lahayn Sarr igu soo bedel Bissouma ciyaaraanka mar walba bedelka ciyaaraanada hoos keedka ku fadhiya ugu soo horeeya mar walba waxa ay noqon karaan ciyaaraanada ciyaaraan tusaalahan haddii hadda qof ka mid ah ciyaaraanada uusan ciyaaran ciyaaraanka ugu soo horeeya ayaa lagu soo bedelaya
kadibna waxaan leenahay save. sidaasna waxaan ku haysanaa shaxdeeni wildcard-ka aan sameynay. saaxiibayaal aad ay mahadsantihiin. wildcard-ka sidan ayaa loo sameeyaa. haddii ay jiraan su'aalo ah qabtiin iyo mowduucyo ay si gaara ay tahay inaan ugu soo hadalno commentiga noogu soo qora. aad ay mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.